1985 baa waxaan eri dawladda Soomaaliyeed qabaa'ilku way dumin doonaa waxaan kaloo u sii sheegay Soomaalida oon eri 1986 waxaan ku iri 20 sano ka hor intaas ay arintaas jiraan 2000 marka la gaaro amxaar xamar buu imanay daawadayaal ku soo dhawaada Allaha u naxariistay taariikh nololeedkii Dr. Umar Usman Rabi oo ku geeriyooday dalka Masar 17 bishii Afraad 2013 Dr. Umar Usman Rabi waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed oo doctoraaga ku qaatay cilmiga falsafada ama filosofiga Dr. Umar Usman Rabi magaciisa saxda ah waxa la oran jiray Dr. Umar Ahmed doctorka Allah u naxariistay waxa uu ku dhashay magaalada Gogti sanadii 1946 magaalada Gogti ku dhashay Umar Ahmed baadi asalkiisu Umar Ahmed magaciisa runtii kadib markii uu dhameystay waxbarashadiisii dugsi sare waxa uu tagay magaalada la yiraahdo Badriskan halkaas oo uu ku soo baranayay cilmiga militariga ah su'aalka ka baxay secondary ka baxay waxa loo diray sariya dhowr loo kale magaalada dhulka Badriskan ay dhacdo taqaan Badriskan malaha waxa la soo barayay dhalinyarada militariga la soo barayay militariga la soo barayay markii uu ka soo noqday doctorka Allah u naxariistay magaalada Badriskan waxa uu shaqo ka helay dhakhtar weyn oo ku yaala magaalada Djibouti doctorku waxa uu ku biiray xisbi la oran jiray xisbiga xoreynta xeebaha Djibouti halka joogo iyo siyaasadda hadda galay siyaasadda soo dhakhtar ku jira ka shaqeeya xisbi la oran jiray xisbiga xoreynta xeebta Djibouti iyo ka mid ahaa waloo anga hayso xisbiga xoreynta Djibouti oo xamar iyo dhuga filijis inkastoo ay soo jaacaytay dhuga xamar laakiin Djibouti uu joogay sanadii 1986 bishii shanaad 8deedii ayay dawladii Faransiiska doctorka qabatay kadibna waxa ay ku xukuntay dil isoo halka ka dagaalay waxa lagu soo dacwad baa lagu soo oogay bariga wadankii Faransiiska De Gaulle oo xukumayay markaasi ya dacwad lagu soo oogay dacwadaas oo ah waxa dowladda in disha lageeyay in la raaco al-caalam fara waqtigaasi oo Djibouti xukumay داخلية هاي حكم داخلية هذا جوته حكومة يلو سوره بدأ وخارجه واحد يهدي ما يكون يسجل بقوليه يدير له كذا هاي مركزه وحلو قاضي فرنسيس كوان كاسا حفيظ مثلا ساين حسيداين وحلو حكم ورته بالبال وحكم عمره صارتي إن قرته يقول بدينا waxa digool iyo ugu bedelay xabsidaay nidaam isla sanadkaas ayaa digool oo madax ka ahaa dawladii Faransiiska ugu bedelay dilkii xabsidayn kadibna waxa uu diray dhinaca iyo Faransiiska ya waxa dhacday Umar Usman halka ku bilaabo waxbarashadiisii magaranaysa jaamacadda marka nin la yiraahdo Dr. Gabood iyo halkaasi xafiiska ugu tagay jiray uu ku diyaarin jiray shahaadadiisa masmara marka uu qaatay shahaadada saddexaad leeyahay badna kala yaqaan nisaan uu qaatay shahaadada masterka wuxuuna halkaas ku bilaabay shahaadada leeyahay introduction doctorate oo magaranaysa DA leeyahay Faransiiska oo hordhaca magaranaysa doctorate ay tahay uu halkaas ku bilaabay Umar Usman laakiin Umar Usman waxa xafiiska ku jira yaa waxa dhacday gobonnimadii Soomaaliyeed Djibouti baa kan loo jiray waxa loo jiray gobonnimadoonka xeebta Soomaaliyeed ee Faransiisku gumaysan loo jiray waxa front de libération de la côte Somalie ya ka afdumay ambasadkii Faransiiska xamar fadhiyay ya afdumay si uu soo daayay Umar Usman Rabi wala soo daayay dawladda Soomaaliya markaa meesha degan Soomaaliya haysatana pressure kuma ay sameeyeen yaaceen ragaasi magaranaysa gobonnimadoonka waa inuu Faransiiska sheegay wala soo daayay markaasi waxa la isku dhaafsaday caadan الرابع مرة عملها كده بيجي جوبيت حلمة هاي صومالي حمر وسط متعرابة حمر وسط كبيرة مكان سجوبني ودون كده هالكا عمر شهر وكجري يوكبيرة مركزي هذا هو نقطة أفعيه جوبني ودون كاسي يو نقطة أو هالكا سوجي جوبيت مكي وريد دقائقي الرابع جوبيت بصدر صورku waxa uu dib ugu noqday dalka Faransiiska si uu aqoontiisa u sii korsado ilaa uu diyaariyay heerka shahaadada PhD-ga oo uu ku qaatay cilmiga loo yaqaan falsafada ama filosofiga markaasi halkaasi PhD-giisa ka bilaabay inuu xaqimo
markaa PhD-ga Cumar Cusmaan Raabi wuxuu qatibay 1979 buu Cumar Cusmaan Raabi ku takhasusay inuu falsafiyadda filosofiga oo shahaadadiisa qaato. الله naxariistay Dr. Cumar Cusmaan Raabi 1979 ayuu soo qaatay shahaadada doctoraaga ah oo uu ku diyaariyay cilmiga falsafada ama filosofiga. kadib markii uu dhameystay shahaadadiisa PhD-ga ayuu Dr. Cumar Cusmaan Raabi ku soo noqday dalka Djibouti oo madaxweyne ka noqday ama madax uu ka noqday macadka lagu tababaro macallimiinta. Dr. Cumar Cusmaan Raabi wuxuu dalka Djibouti ku yimid warqad ogolaansho ah oo ka helay madaxweynaha Djibouti taasoo cadeynaysa inuu si nabadgelyo ah oo amni ah ku yimaado dalkiisa hooyo. intuu dalka dibadiisa ku maqnaa Dr. Cumar Cusmaan Raabi kama uusan maqnayn inuu dadkiisa had iyo jeer meelaha fagaaraha kala hadlo isagoo mar la hadlayo dadka reer Awdal waxa uu yiri haddii noqoto reer Awdal adigu waxaan ogaanahay haddaad Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo Ilaahay waxdiinadiisa qirtaan oo aad samaysataan xeerar aadamuhu ku buuxo lagaga bilaabo idinka iyo gobolkiina iyo kuwa jaarkiina iyo Soomaali oo dhan iyo kuwa aan Soomaali ahayn haddaad ku fikirtaan waa wax lagu noolaan karo oo maxay ahayd macquul oo ina dhaafi kara oo dhaxal uga tegi kara oo problemada iskaga xalili kara waa fikradda bani aadamku ku noolaan weli waa haysataan sambalitaas wax kamida oo gobol dhaafsan oo qolo dhaafsan oo dhaafsan maxay ahayd yani in kooban dhaafsan oo gobol gaara oo qaran gaara oo Soomaali gaara oo ummad gaara oo xitaa dad kale gaara waxaa kamid ah jaamacadda fikradda jaamacadda لأن صوتي بيتسجل عبد وحويا فكرة قرن وفكرة آدم وفكرة كوي قبلها وانتصبت كلنا أي فلان سيستاني كرا Dr. Cumar Cusmaan Raabi isagoo la hadlaya aqoonyahanka ku dhaqan goboladan Awdal iyo Salel waxa uu tilmaamay in ay sameystaan organizationno baahida dadka iyo noloshooda u cadeeya waxay u doonayaan haddana organization ladahay wax isan haddana ladahay organization haddana ladahay haddana ladahay south oo maxay ahayd min haddana ladahay meel faradu kusoo ururto saytanaan laga tallaabo qaad haddana ladahay waxba maslan karto anu markaa waxaa igula jeedinaa waxa ugu horreysay waxa weeye in organization la sameeyo Dr. Cumar Cusmaan Raabi kuma uusan koobnayn inuu ka hadlo qadiyada Soomaaliya oo kaliya hata balse wuxuu ka hadlayay qabiilka iyo qaranka waxa uu yahay markaas qabiiliga qaran baa la digay haddaad reer awdalkiisa Soomaali ka baxday ma difference weyn waa Soomaali weyn kasi weyn waa Islaamnimo weyn dalka oo degan dawladda oo jirta wadanka oo awood sare leh ayaa wuxuu Dr. Cumar Cusmaan Raabi qoraal ku cadeyn jiray in dalka Soomaaliya ay qabaa'il burburin doonaan waxa uu hadaladiisa u dhigay sida tan waxa aan waliba Soomaali isku day inaan uga sii digo dhibaatooyin waaweyn oo soo socda waxa kamid ahay iyadoo la degan yahay oo dhulku nagi yahay 1985 baa waxaan eri dawladda Soomaaliyeed qabaa'ilku way dumin doonaan 85 baan u sheegay 19 way dumiyeen la fiiga la kala qaatay dawladda Soomaaliyeed yani baanankeedii iyo wasaaradaheedii iyo faylalkeedii iyo wixii oo dhan dhulka la dhigay waa 19 waxa uu Dr. Cumar Cusmaan Raabi oo doorasay 1986 in dalka Soomaaliya ay soo gali doonto Itoobiya kaas oo ku tilmaamay in magaalada Muqdisho ay qabsan doonto dadkuna ay u arkeen markaa in uu riyoonayo waxaan kaloo u sii sheegay Soomaalida oo 86 macna sanad kadib 1986 waxaan ku iri 20 sano ka hor intaas ay arintaas jiraan 2000 marka la gaaro 2000 marka la gaaro amxaaru xamar buu imanay 2006 waa ku xamriid kusanugu waxaan dirsay waxa meesha ka socda ay sidoo dhinac u jeedo iyo sida isku yani hawsh iyo sida ay Soomaali tahay yani waxba ugu fiirsanay waa ku yimid markii ay dawladda Soomaaliya burburtay ee wadankii uu u kala go'ay qabaa'il iyo kooxo iyo degmo Dr. Cumar Cusmaan Raabi kama uuna harin dadkiisa inuu had iyo jeer u bishaareeyo balse wuxuu bilaabay inuu rajo u muujiyo oo uuna tilmaamay waxa la arkay Soomaali dib u magoosho waxa la arkay Soomaali intii la isnacsiiyay boqolkeeda isjeclaata oo boga isgelisa oo xabada la xoola kala goosata ayaa la arkay doona
باذن الله. دكتور عمر عثمان رابي waxa ahaa nin Soomaaliyeed oo daacad ah oo jecel dalkiisa iyo dadkiisaba mar uu cadeeyay waxa uu dalka ka jecel yahay waxa uu daba socdo hadii jeer waxa uu yiri anigu waxaan daba socday oo raadinay oo horba isku dayay inaan idin ka dhaadhiciyo waxa kulligiinba bartanidina ee gidigiinba aad wada baahantiin ee laga maarmaan u ah noloshiina. dadka Soomaalidu waa dad qadiimiya waa dad taariikh dheer leh inkastoo taariikhyahanada adduunka oo doodo badan ka muujiyaan mar uu Dr. Cumar Cusmaan Raabi uu arkaas aad u daba goray beerayna waxa uu cadeeyay sida tan waxaan doonayaa inaan Soomaalida u sheego dad qadiimi weeyaan waxaan soo jirnay ilaa 8,000 oo sano ayaa soo jirnay inta aynu soo jirnay waxa ina helay 7 jeer baa sida maanta aan u leeyahay todobada jeerna waxaynu kaga soo baxayn oo kaga soo gudbayn la ilaaha illa allah ayaan kaga gudbayn tanna waa tii sideedaad waana tii ugu dambaysay weeyaan oo dib dambe hadda kadib waxaan kaasi kuma iman doono Soomaaliya abshir waa tii ugu dambaysay biidnillah waana arki doontaa inay tahay tii ugu dambaysay. daawadayaal inta waxaan ku soo afmeeraynaa taariikh nololeedkii aan iga diyaarinay Dr. Cumar Cusmaan Raabi oo Allah u naxariistay ku geeriyooday dalka Masar 17kii bishii Afraad 2013 tan iyo intaynu mar labaad ku kulmi doono waa aniga Maxamed Xaamid oo inile wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.